بسم الله الرحمن الرحيم وأستاذ افتح وكنور injineer geesi waxaan wadnay trainingkii ahaa the right manager manager saxda maanta waxaan qaadanaynaa maalintii labaad divine management maxaa raada managementigu maxaa tahay managementigu muxuu yahay isaga managementigu waxa weeye waa hab processkaasoo shayga lagu dhigaayo dan mid dhacay yani shayga in la qabta laga dhigaa see loo qabanaa marka shay effectively marka lagu leeyahay waxa weeyaan hadafkiyaa la gaarayaa hadafkiyaa lagu gaaraya and efficiency waxaa la isticmaalayaa costiga ugu yar kharashaadka ugu yar with and through people waxaas oo dhan lagu qabanaya dad ayaa lagu shaqeynaya management waxa weeyaan habku qof aad ku shaqeynaysid qofkaasna markaa ku shaqaysid oo shaygu uu qabanayo si sax ah oo dhinac walba ka saxsan effectively marka lagu leeyahay waxa weeyaan doing the right thing in la qabto shayga saxda the task that help an organization reach its goal effective waxa weeyaan waa hadafkaaga wixii ku gaarsiin lahaa inaad si sax ah u qabato effective u qabto marka lagu leeyahay waxa weeyaan sida goalka ah sida hadafku ahaa ayuu u qabtay hadafkii ayuuna gaarsiiyey managementiga waxaa laga rabaa management saxda ah waxaa laga rabaa inuu u qabto shaygu effectively and efficiently asagoo weliba isticmaalayo dad ayuu isticmaalay through people yani managementiga shadiisoo kale waa managementiga waxaa daba kacan employee ayaa daba socda flowers ay daba socdaan management ay daba socdaan Alibaba wuxuu ku leeyahay markaad 20 sano aad gaartid oo kale waxaad u shaqeysaa maxay management fiican oo ku gaarsiinaya hadafkaaga businesska yani flower u noqdo dabaka management fiican dabaka oo hadafkaaga laakiin ku gaarsiinaya waxba yuu ku siinin hadduu doono iska dabaka yani hadafkaaga kuugu wadaa ilaa marka management is a process of getting things done waa habka oo shaygu loo qabanayo weliba waxaa loo qabanaa si hadafka loogu gaarayo si lacag yar loo isticmaalo cost yar hadduu ku galo faa'iido badan ahay yani cost yar ku galay qarashaadka price saaranaysa price markaa gadatid tusaalahaan $20 ayaa shaygan soo saaridiisa gashay waxaad gadaysaa $40 $20 faa'iido ku saaran marka wuxuu isticmaalayaa managementiga marka dad ayuu isticmaalaya effectively waxa weeyaan effectiveness in la qabto shayga saxda ah weliba hadafkii la rabay lagu gaaro hadafkii waa la gaaray marka leeyahay si effectiveness loo qabto efficiency waxa waaye doing things right shayga si sax in loo qabto doing things shayga in right loo qabto kana waxa waaye doing the right in si sax ah things shayga loo qabto kana waxa waaye doing things shayga in la qabto right si sax kan waxa waaye marka the efficiency use of such resource as people yani in loo isticmaalo si sax ah dadkii employee money lacagti equipment khalad waxaasoo dhan soo koob waa resource waxaa raadaan waxa aad adiga haysatid shirkad ahaan waxyaalaha adiga aad haysatid wax kusoo saari rabtid oo ama shayga aad adiga haysatid si sax ah inoo isticmaashid oo kharash badan kaaga bixin ayaa waxaa raadaa efficiency loo sameeya haddii lagu raado isla marka qalbiga soo galo resource and costigs yar in loo isticmaalay soo galo maskaxdaada isla marka management waxa weeyaan ninka si saxa u isticmaalo dadka haysto si saxa dadku u haysto markaa leeyahay employee inaad ku tumanto lagama rabo shaqaalihii ku shaqeynayay haddaad ku tumanto gabar oo aad tiraahdo kaaliya nina soo shaqaaleysiinaysaa tusaale ahaan markaas waxaad tiri hebel walahi shirkadan haddaad ka shaqaysid faa'iido badan aa helaysaa lacagtiin $100 aad tiri $100 ayuu shaqeynaysaa tiri dadkana shaqadan oo kale qabtaan waxaa siisaa $500 shaqadan oo kale ee degreega ninkan ah qofka oo shaqeeya waxaa siisaa $500 nin kala rabtaa inaad soo kireysatid oo kale markaas waxaa leedahay hebel maanta haddaad shirkadan u shaqaysid waxaad helaysaa faa'iido badan wallaahi faa'iido badan helaysaa والفائدة بدل ما قام مرة بدأ إن أنك سوق العزيز وحال غيره هنا ترى
hebel shaqadaas waxaa loogu shaqeeyaa intaas ku siinayna noo shaqeey sida saxda waa sidaas marka people dadkan ku shaqeynaya waxaa la rabaa inaad xuquuqdooda dhowrtid haddaad tiraahdi kabar nus biyo xataa cid loo ogolaya ma laha biyo xataa looma ogola haddaad tiraahdi kabar qof soo qalad maaha managementigu saxda ah waxa weeye ninka si u isticmaalo dadka si saxa u isticmaalo employees lacagta ugu hayso si saxa u isticmaalo iska bixinin equipmentiga qalabkana si saxa u isticmaalo shay kasta si sax ayuu isticmaalo effectivena waa weeyaan hadafkiina waa gaaray hadafkii adigoo gaaraya fiiriya laba shay isku wada hadafkii shirkadda adigoo gaaraya oo ah profit to get profit in macaash la helo inaad qanacso customerkaaga hadafkii aad rabtay inaad gaaraysid waxaad samaysay maxay si sax ah ayaad ku gaartay oo se ugu gaartay efficiency ku gaartay hadafkaaga efficiency ku gaartay oo dadkii si sax ah u isticmaashay lacagtaada si sax ah u isticmaashay qalabkaaga si sax ah u isticmaashay kuma dheedheelin management this is the right manager kaas manager sax ah managementigu labadan unbuu xoog saara asaga ko efficiency use waa bilow in this dhamaadkan effectiveness يعني efficiency resource ayaa si fiican u isticmaashay low waste waa wax badan ma luminin wax badan oo resource ah kaama lumin يعني هدفكaaga si sax ah ugu gaartay wadadii saxda ah u martay hadda indho waa hadafkaaga markaad goorma la ogaada hadafka in la gaaro shirkadda markay dhamaatay hawsha markay dhamaataa raada sidii aan u dhignay ma u dhacday waa hadafkii efficiency use marka ninka managerka saxda ah waxa weeye ninka u isticmaala dadkiisa iyo lacagtiisa si sax ah asagoo weliba hadafkiisa gaaraya taas qalbiga ku haysta insha allah casirka waa sii wada doonaa maanta trainingkeena maanta halkaas waa noo okaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.